waxaa tigniko iyo cudud awoodeed buuhooda korkeeda keenay Ethiopia oo waxay ciidan iyo awood haysay ay keentay waxa weeye hawd iyo xuduudda waxa weeye hawd kuwa badan hartiyo waxaan u jeeday leh waxa weeye waxay xirayaan gurmadka ka soo gurmanaya doolla iyo meelaha sidii dagaal dhaco laakiin qoliyuhu wanta ahayd waxay ku dhufteen qallan waa waray waxay taagan yihiinba Ethiopia go'doon gelinaysa waxay naga celinaysaa gurmadka ay ka heli laheen Soomaali deegaanka Ethiopia shalayna waxay lahaayeen habar jecel waxa la dagaalamayso harti oo kaliya shirkadii afraad joojisay 6 cisho ugu dambeysay adeegsiga hawada Soomaaliya tan waxay ka dhigan tahay Soomaaliya inay lumisay lacag dhan ama lacag ka badan 12 milyan oo bil kasta ay ka heli jirtay diyaaradaha hadda iska daayay isticmaalka hawada Soomaaliya waxa kale oo jira garaad qaar oo qadka telefoon kula hadlay Axmed Macalin Fiqi waxay ka dalbadeen garab istaag iyo in lagu taageero ciidanka Soomaaliya waayo ciidanka Soomaaliya ka maqan la sacnood cid kale ma ahna beesha hawiye waxay rabaan sheekada u socon weysay bilowga hore dagaalka inay uga faa'iideystaan Ethiopia xiratay xadkeedii ninka wardheer bay ku sugan yihiin deegaano kale oo gobolka Cayn ama buuhod halka xuduud baynaadku marana ciidamada keeneen ilaa saxdheer ilaa dharkeen geedulkaas waxay rabaan in ciidamada dababaad keenaan taasna waxa weeye waa shaki weyn dawladda Soomaaliyeed anagu dad state maamul goboleed baan nahay laakiin wixii qaranka difaaciisa dawladda Soomaaliyeed ayaa qaabilsan bismillaah saaxiib soo dhawaada marka xigta muuqaalka fogeena meel fogna gaarsiya isha lagu hayo maalmaha soo socda waxa ka dhici doona deegaano ay kamid tahay buuhoodle militariga Ethiopia maalmeeda deegaanadaas waxay ka wadeen hawlgallo halkaasna waxay ku qabteen dad lagu tuhmayo inay kamid yihiin kooxaar gaxisa ah kooxo kamid yahay Cabdimuudabana deegaanadaas hoostaga buuhoodle way ka soo baxsadeen waxaana filayaa inay soo aadeen halkaas iyo la socnood militariga Ethiopia waxay xirteen dhammaan xadkii la wadaageen deegaanadaasi xitaa waxay diideen militariga Ethiopia isu socodka dadka iyo gaadiidka dadku sugan deegaankaas wuxuu ku sheegay soo galitaanka militariga Ethiopia deegaanadaasi laba mid koowaad in militariga Ethiopia la sii xog ah deegaanadaasi inay ku sugan yihiin ama ay ku dhumaalaysanayaan kooxo hubeysan markaas la tuhunsan yahay ama lagu tuhmayo inay kamid yihiin kooxaha argagixisada ah midda labaad wuxuu ku sheegay in Ethiopia xadkeeda xiratay ciidan ay keento inay la xiriirto khilaafka Ethiopia kala dhaxeeya dawladda xamar waxaana ciidamo badan ay keentay Ethiopia xadkeeda la wadaagta Soomaaliya gaar ahaan deegaanada ka socdaan dagaalka waxaana ka cabsi qabtaa Ethiopia deegaanadaasi si fudud inay ugu soo gudbaan kooxo hubeysan almuhiimtan waxa ka dhigan tahay inuu jiro qalqal xuduudda Ethiopia ay suganayso amniga xadkeeda laakiin qoliyuhu wanta ahayd waxay ku dhufteen qallan waa waray waxay taagan yihiinba Ethiopia go'doon gelinaysa waxay naga celinaysaa gurmadka ay ka heli laheen Soomaali deegaanka Ethiopia shalayna waxay lahaayeen habar jecel waxa la dagaalamayso harti oo kaliya laakiin maanta ayaga ayaa isku marqaati furaya fiidowga waxaad gaarsiisaan guud ahaan beelweynta daarood waxa daaqadaha uga gelisaan beesha harti haddii aad qof daarood tahay fiidowgaasi waajib uu kugu yahay inaad share gareysid waxaa tigniko iyo cudud awoodeed buuhooda korkeeda keenay Ethiopia oo waxay ciidan iyo awood haysay ay keentay waxa weeye hawd iyo xuduudda waxa weeye hawd kuwa badan hartiyo waxaan u jeeday leh waxa weeye waxay xirayaan gurmadka ka soo gurmanaya doolla iyo meelaha sidii dagaal dhaco ninka wardheer bay ku sugan yihiin deegaano kale oo gobolka Cayn ama buuhod halka xuduud baynaadku marana ciidamada keeneen ilaa saxdheer ilaa dharkeen geedulkaas waxay rabaan in ciidamada dababaad keenaan taasna waxa weeye waa shaki weyn dawladda Soomaaliyeed anagu dad state maamul goboleed baan nahay laakiin wixii qaranka difaaciisa dawladda Soomaaliyeed ayaa qaabilsan halkan dhibaato xoog weyn baa ka dhacday oo cadawgan hadeer u soo hub urursanayo inuu mar labaadina soo weeraro dhib xoog leh buu ka geystay qeyladaanta calaalka barwarta waayaan ka soo baxayso huwanta waxay ka cabsi qabaan Soomaaliland inay dagaal ay soo qaado waxa jira shimbir ka sii qeyliya colaad ama dagaal dhici doono maanta markii waxa ka dhigayeen kooxana huwanta shimbirkaasi waxay ogyihiin haddii ay soo dhaqaan ciidamada Soomaaliland inaan la celin karin oo ay iska caabin karin laakiin Soomaaliland maanta waxay ku mashquulsan tahay hawlo ka waaweyn kooxaha huwanta Soomaaliland wuxuu aragtaaba cayayaan ama kaneeco ay hal mar ay buufin karto Soomaaliland waxa kale oo jira garaad qaar oo qadka telefoon kula hadlay Axmed Macalin Fiqi waxay ka dalbadeen garab istaag iyo in lagu taageero ciidanka Soomaaliya waayo ciidanka Soomaaliya ka maqan la sacnood cid kale ma ahna beesha hawiye waxay rabaan sheekada u socon weysay bilowga hore dagaalka inay uga faa'iideystaan Ethiopia xiratay xadkeedii ayna ku dagaalgeliyaan beelaha hawiye ayagoo la Ethiopia ugu soo duushay wana munaafaqadii dadkoodii deegaankooda dabka ay u galiyeen laakiin u maleemay qof hawiye inuu soo dhawaaqay sababtoo ah xasan sheekh ayaa dagaal aan laga fiirsan wuxuu galiyay 2 sano ugu dambeysay beelaha hawiye
ugu dambeyntii shirkadda diyaaradaha Qatar Airways waxay sheegeen inay joojiyeen isticmaalka hawada Soomaaliya waxayna ku sheegeen sababta ay u joojiyeen inaan la isku haleyn karin badqabka maamulka hawada shirkadii afraad joojisay 6 cisho ugu dambeysay adeegsiga hawada Soomaaliya tan waxay ka dhigan tahay Soomaaliya inay lumisay lacag dhan ama lacag ka badan 12 milyan oo bil kasta ay ka heli jirtay diyaaradaha hadda iska daayay isticmaalka hawada Soomaaliya diyaaradaha soo taraya kuwaas oo ku dhawaaqay inay joojiyeen adeegsiga hawada Soomaaliya midaasi waxay caqabad ku noqon doontaa levelka ay joogto maamulkii hawada laga soo wareejiyay Nairobi